Assalaamu calaykum waraxmatullah. Jack Ma, ninka ugu taajirsan dalka Shiinaha, ahna aasaasaha shirkadda Alibaba. Jack Ma waxa uu ku dhashay magaalada Hangzhou ee dalka Shiinaha sanadka markuu ahaa 1964. Waxaa dhalay hooyo aabba xirfadfaneed lahaa oo aan hanti badan dunida ka samayn. Jack Ma markuu yaraa waxa uu aad u jeclaa inuu barto luqadda Ingiriiska, mar walbana waxa uu ku dadaali jiray sidii uu ku baran lahaa luqadda Ingiriiska. Intii uu waxbarashada aasaasiga ku jiray iyo markii uu dugsiga sare dhameeyayba waxa uu tagi jiray hotel u dhow halkii uu deganaa oo ay dad ajaaniba imaan jireen si uu heerka Ingiriiskiisa u horumariyo. Markii dambe waxa uu bilaabay inuu hago dadka ajaanibta dalxiiska u imaan jiray magaalada Hangzhou. Jack Ma markii uu dugsiga sare dhameeyay luqadda Ingiriiska bartay, waxa uu 10 jeer codsaday inuu arday ka noqdo jaamacadda Harvard ee dalka Mareykanka, balse 10kii marba waa ay soo diiday codsigiisa. Markii ugu horreysay ee shirkadda KFC xarun ka furata dalka Shiinaha, Jack Ma wuxuu ka mid ahaa 24 qof oo shaqo ka codsatay. 23 qof kale waa la aqbalay codsigoodii. Jack Ma ayuu ahaa qofka kaliya ee la diiday inuu ka shaqeeyo KFC. Mar kale waxa uu codsaday shaqo ciidannimo. Isaga iyo 5 qof kale ayaa wareysiga shaqada lagu casuumay. 5tii qof kale ee waa la shaqaaleysiiyay. Jack Ma ayaa noqday mar kale qofka kaliya ee shaqadaas aan nasiib u yeelan. Ugu dambeyntii Jack Ma waxa uu ku biiray macadka tababarka macallimiinta ee Hangzhou. Isla macadkaas ayuu ka qaatay shahaadada heerka koowaad isagoo bartay luqadda Ingiriiska. Sanadii 1995 ayuu Jack Ma yimaaday dalka Mareykanka markiisii ugu horreysay, isagoo qayb ka ah koox dowladda Shiinaha ka socda oo mashruuc wada dhisida u yimid dalka Mareykanka. Nin ay isla shaqayn jireen ayuu xafiiskiisa booqday oo ku yaala magaalada Seattle ee dalka Mareykanka. Ninkii saaxiibkiisa ah ayaana dhahay, saaxiib Jack, internet ma u baahan tahay? Jack Ma oo internet waxba ka garanayna ayaa ugu jawaabay, waa maxay internet? Jack Ma oo dhacdadaas ka sheekaynaya ayaa sheegay in saaxiibkiisa uu baray waxa la yiraahdo internet. Waxa kaloo intaas raaciyay inuu ka cabsanayay kombiyuutarka inuu jibiyo sababtoo ah dalka Shiinaha waqtigaas kombiyuutarka qaali ayuu ka ahaa, dad yar oo la yaqaan ayaa haysan jiray. Jack Ma saaxiibkiisa waxa uu Jack ka codsaday inuu internetka wax ka raadiyo. Jack Ma ereygii ugu horreeyay uu weydiiyay internetka waxa uu ahaa ereyga beer oo ah bahal dilaa u eg eyga kana dhogor badan. Jack Ma waxa uu internetka ka arkay sawirro badan oo beerka ah oo ku kala nool wadamo badan oo kala duwan, balse waxa uu ka waayay dalka Shiinaha. Marka ayuu saaxiibkii weydiiyay, saaxiib beer Shiinaha ku nool sawirkiisa uma jeedo, maxaa dhacay? Saaxiibkii ayaa ugu jawaabay, waxaad internetka ku qortaa China. Jack Ma markii uu internetka ku qoray kalimadda China waxa u soo baxday there is no data, taas oo micnaheedu yahay wax Shiinaha ku saabsan internetka weli lama soo gelin. Jack Ma arintaas u cuntamiyay ayaa yarkii saaxiibkiisa waxa uu ka codsaday inuu website u sameeyo si xog ku saabsan Shiinaha loogu helo internetka. Waa uuna u sameeyay. Maalintii ugu horreysayba waxa u soo dhacday 5 email oo dad kala duwan oo ku nool daafaca dunida ay u soo direen, maadaama xog dalka Shiinaha ku saabsan aysan weligooda arkin. Ninkii markii uu arkay emailadii soo dhacay ayuu waxa uu wacay Jack Ma, waxaanu ku yiri, saaxiib Jack, waxaana loo soo diray 5 email. Jack Ma oo si daacad ah ugu jawaabay ayaa yiri, saaxiib email maxaa la dhahaa? Wada sheekaysi yar kadib Jack Ma waxa uu soo cararay xafiiska si uu u arko emailka. Markii uu aqriyay emailadii loo soo diray Jack Ma, waxa uu arkay inay meesha jirto fursad badan oo lacag lagu sameyn karo, dad badanna lagula xiriiri karo. Jack Ma oo ah hadda ninka ugu lacagta badan dalka Shiinaha, wuxuu leeyahay shirkadda Alibaba oo ka mid ah shirkadaha ugu caansan ee dunida internetka wax ku iibisa. Jack Ma oo ka hadlay arintaas waxa uu yiri, markii aan ganacsiga bilaabayay dhammaan bangiyada Shiinaha waxay ii diideen inay maalgeliyaan, balse maanta iyaga ayaa rabo inay ganacsigayga lacag ku darsadaan, balse aniga ayaan doonayn. Ninkii tabarmaray jaamacadda Harvard soo diiday ay KFC shaqada u diiday, haddana askarnimada codsaday haddana la diiday, maanta waxa uu ku jiraa dadka ugu hantida badan dunida, waana ninka ugu dhaqaalaha badan dalka Shiinaha. Biladihii iyo abaalmarinadii uu ku guuleystay Jack Ma. Sanadii 2004 telefishinka qaranka Shiinaha ayaa u aqoonsaday inuu ka mid yahay 10 hogaamiye ganacsadeed ee sanadka. Sanadii 2005 jaraa'idda Business Week ayaa guddoonsiisay abaalmarinta ganacsadaha sanadka. Sanadii 2009 jaraa'idka Time Magazine ayaa ku soo daray liiska 100 qof ee ugu saameynta badan dunida. Isla sanadii 2009 Jack Ma waxa uu abaalmarinta shakhsiga sanadka ka helay CCTV. Sanadii 2014 shabakadda Forbes ayaa u aqoonsatay Jack Ma shakhsiga 30aad ee ugu saameynta badan dunida. Sanadii 2015 waxa uu ku guuleystay abaalmarinta hal abuurka ganacsi ee qaaradda Asia.